waxaan leeyahay deegaanka waa Dar es Salaam horta awalan waa nabad qabaa 10 sano ama 12 sano ayuu jiraa saddex madaxweyne afar madaxweyne oo soo maray Puntland wuu joogay deegaanka kanu wuxuu uga baahan yahay dawladda Puntland deegaankan waxtar buu uga baahan yahay hal xubin ama hal goob oo wasiir Puntland ilaa madaxweyne waa yimaadeen ay dhagax dhigeen ma jidho waxaan rabnaa wasiiradiina maanta soxro wasiir ku-xigeenada mas'uuliyiinta sharafta leh oo socota inaad meel noo dhagax dhigtaan meeshaan nagu farta saarno inaad maanta noo dhagax dhigtaan dhagax dhigaasan dhismo uu ku xigo baanu doonaynaa waxyaalaha baahida anoo soo koobahaya 5 xarumood baa noogu muhiimsan iskuulka meesha waxbarashada stationka iyo caafimaadka xarumihii maamulku uu ku shaqayn lahaa iyo bahalka liya suuqi 5 qaybood laba ma shaqayso oo meel jira ma ahan dhulkii kaliya noo diyaarsan waa xaruntii maamulku ku shaqayn lahaa iyo meeshii suuqa ahayd dhulkii kaliya noo diyaarsan wayda tusaynaa labada meelood ma shaqeeyaan mana dhisna waxba kama dhisna saddexda kale way shaqeeyaan waana qabyo wax qabad bay u baahan yihiin sida iskuulka oo kaleeto wuxuu u baahan yahay ilaa dugsi hoose dhexe waa dhisan yihiin dayd iyo dugsi sare u baahan yahay ardayda sanadkan 8aad galaysaa 8aad tahay daydna wuu baahan yahay dugsi sare wuu baahan yahay macallimiinta waxay u baahan yihiin xitaa macallimiintu waa nagu yadhahay stationka oo kale qabyo weeye ciidan yar baa dawladdu noo diiwaan gashan laakiin laguma filna meesha rugta caafimaadku dawlad waxba noogama qabanin saasa laakiin annaga isku tashanay hadeertan shaqa ka socota waana qabyo wax ka qabad buu u baahan yahay 12 sano iyo 10 sano mid kastaba ha noqotay ay Dar es Salaam dhisan tahay inta madaxweyne isbedelay marba isbedelayna way dhisnay xoogood nin nooga yimid intaas waxa jiray madaxweyne hadda ka degay kursiga gaas yaa noogu yimid madaxweyne cid kale noo timid ma jirto inaan jirnay inaan jirba kaba warqaba Puntland kama tirsanin baan oran karaa anigu kama tirsanin baan oran karaa sababta ay tahay waqti noo yimaada oo noogu yimaada Dar es Salaam sidee bay tahay ma aragnaba anagu waxyaalahan tabayno waa kamid waqtigiina sharabtooda maanta noo yimid intaas oo ay dhisan tahay dagaamada nala mid way hormareen waxbarasho ku hormareen waxa ku madayactir bay ku hormareen waxa ku hormareen abaaraha oo ay ka gargaaraan waxa ku hormareen biyo ay ka kaalmeeyaan annagu motorayada mid weey waa midka kaliya oo maalin walba indhuhu isku qabsada duuca naga fariisto meel u dhaqaaqna male markii Puntland loo dhaqaaqna habar kasta motor baa loo mud Dar es Salaam ma ahaan habar baad gaysan motor kaliya loo mud arkayso iska agurta arkayso Dar es Salaam mooyaana markii bursaalaha la gaaro baraka fayl baa motorka madayihiin ambooska ba ku jirin waxaan waqtigiina u sheegaynaa ma gaabinaya dacwasha ka soo ridaya waqtigiina waxaan u sheegaynaa haddii aanu nahay annagu dad Soomaaliya oo Puntland oo ka tirsan Puntland haddaanu nahay waanu dulmanahay dulmi weyn baan ku hayaa cunaqabato weyn baan ku hayaa meel aan la ka cunaqabato ma jirto haddaad maanta noo timaadeen cunaqabatada naga saaro waxna tusa oo waxaan noo qabta oo motorna noo keena oo noo maalgeliya inta naga qabyada meesha la yiraahdo Dar es Salaam xogteeda horena waa u haynay haatanna waa u joognaa waxay ka mid tahay meelaha ugu quruxda badan ugu bilicda badan Soomaaliya ka sokow muddadii ay jidhayna yadhahay oo hadda 12 sano ah 9 sano ah haddana sidaa u dhisantay iyo habka naqshadeeda loo dejiyay iyo quruxda ka muuqatiya geedaha la talaalay waxa weeye waa wax Ilaahay loogu mahad celiyo way ma hadda Ilaahay ka sokowna dadkii keenay aragtidaas iyo fikirkaas kana shaqeeyay intii ka shaqeysaba aad iyo aad buu mahadsan yihiin waxa soo haray mashaariicda sahlaya in dhaqaaluhuna horumaro amniga laga shaqeeyo maamulka iyo dawladnimadana meesha laga hirgeliyo dawladdan cusub xukuumaddan cusub Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha ka yahay annaguna wasiirada ka nahay waxaan naga go'an haddii Ilaahay inaan daadajinno
maamul wanaagga iyo maamulka iyo adeegga dawladda in la daadajiyo oo taa micnaheedu ay tahay inaan laamiga la saaraane dadkii meeshii joogaanba loogu tago oo qofka laamiga ku nool iyo qofka tuulada fog ku noolba inay isku xuquuq ay u siman yihiin inay helaan adeegga dawladda haddii lahayd